السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan. waxaan galabta halkan u fariistay inaan baaq u jeediyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogto iyo hay'adaha caalamiga sida Amnesty International iyo Human Rights Watch. baaqasan soo jeedinayo wuxuu ku wajahan yahay xaalad bini'aadanimo ee ka jirta dhalinyaro Soomaaliyeed oo maxaabiis ku ahaa waddanka India qaarkood muddo 7 sano 5 sano ku dhawaad ah. marka waxaan ognahay in dhalinyaro hadda xabsiga ku jirta oo cadadkoodu yahay 118 qaarna ay hore ugu dhinteen xabsiga, qaarna ay ku dhinteen falgalkii lagu soo qabqabtay dhalinyaradaas, in ay xaaladoodu aad u liidato, xaaladooda nololeed, midda caafimaad iyo midda sharciyanba. waxaan ogsoonahay in dowladda Soomaaliya dad ka socda ay waddanka India tageen, ay ayaga u tageen ama ay ka hadleen, ay ballan qaadeen in wax laga qabto arrintoodiina aan waxba laga qaban. marka waxaan Soomaalida dhammaan meel kasta ay joogto iyo bini'aadanka jiraba intooda badan ugu baaqayaa, hay'adaha caalamiga ugu baaqayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee xabsiga isaga jira oo aan la xukumin in loo fidiyo gurmad degdeg ah si noloshooda wax looga bedelo ama waddankoodii loogu soo dhoofiyo. intaas ayaan galabta rabaa inaan soo jeediyo. waana mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.